waxaan caawa isdul taagayaa 7 qodob oo qofka salaada subax ka taga uu waayay hadaa 7da aad dakoor ka tood la heshiisteen aad ka maarantay iskaga maaran haddii kalena xisaab kale u fariiso muxuu khasaarayaa qofka salaada subax aan tukan maada khasira man taraka salaat al-fajr salaada subax markuu ka tago kow waxaad khasaaraysaa aayaadkii leenugu akhriyay aayaad aad u culus bay ahaayeenoo waxay ka wararayeen munaafiqiintii iyo siday u dhib badan yihiin iyo siday rasuulka u kadeedeen baa laga warramay subax hadaa tukatid waxaad helaysaa shahaada certificate baraa'a min an-nifaaq inaan horta munaafiq ahayn Allahu akbar munaafiqiintii dhibta badnaayeen leeyri naarta waa kuwa ugu hooseeya adiga waxa lagu leeyahay kuma jiro marka salaad subax tukatid waxaad helaysaa baraa'atu min an-nifaaq marka subaxii tukatid nabigu muxuu yiri asqalu salati ala al-munafiqin salatu al-isha wa salatu al-fajr salaada ugu culus munaafiqiintu waa salaada ishaha iyo salaada subax idan adu certificate waad qaadatay la subaxii munaafiq ma noqon waadiga joogay qodobka labaad waa sababta a'damu sabab lidukhul al-janna sababta ugu weyn in janna la galo waa salaada subax la tukado nabigu wuxuu man salla al-bardayn dakhala al-janna wa hadith wa naqara sawma ninka labada qabow tukada casarkii iyo subaxii jannada uu isku huba Allahu akbar tasaddaxad naarna an-najat min an-nar subaxoo tukata waxay marxaati kaaga tahay adiga naarti baa kala badbaadaya adiga naarti ayaa kala badbaadaya nabigu wuxuu lan yalija an-nar ahadun salla qabla duluu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha afar iga tirunde ka afraadad khasaaraysa ninkan salaada subax masaajidka mariyo waa inaad ogaato waxaad khasaaraysaa inaayatullah ilaahay asraanskiisa iyo igshoorankiisa inaad gashid iyo taamiinkiisaad khasaaraysa baawreen wadana dariiqa ma mari karno maxaynu qaadanaa igshooran iyo asraas baan qaadanaa taamiin sooma taamiinku waa isku ilaalinaysaa hadii kale waad nixoon baawr been jiidaysaa moodaysaa hadduu maalinka yar dhacood gordanba ogaatid cabsi waa ku haynaysa ninka hadaba ilaahay asraaskiisa goosanaya waa ninka salaada subax tukadana ilaahay asraaskiisa uu galay Allahu akbar إكسارك مسكنا إلهي سبحانه وتعالى كانوا بين الدالية الدنيا مستعدين سمته نبي عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح فهو في ذمة الله نك صلاة الصبح كذا إلهي الذمة سكتيرا إلهي مجنتي سكتيرا إلهي أسرانس كيس إكسارك سكتيرا قضب كشانات كلن بعد عايش سر بعد عايش كي أفريقيا ما هكي ومضحنا معها كلن وين بعد عايش ملائكة ولا الله فريسنا meesha malaa'igta la fariisanayo ee la kulmayo ee la is arkayo ninka ka maqnaada ka waran ninka magaciisa uu ka dhaca ka waran liqa al malaa'ika wa saqada ismuhum min sijillati magaciisa laga waayo doosayga malaa'igta mid la i'tiraafsay baan ahayn ka waran waa maxay leeyahay wuxuu yataaqabuna alaykum malaa'ikatun bil-layl wa malaa'ikatun bin-nahar waxa isku kiin bedela laba malaa'ig malaa'ig habeenkii oo leedin la joogta iyo tu maalintii oo leedin la joogta isku kiin bedela markaas kuwa maalintii markay waxay yaani imanayaan qaarna salaada subax bay imanayaan qaarna salaada casr way isbedelayaan Allahu akbar markaas ilaahay bal u fiirso ilaahay baa weydiinay wuxuu leeyahay kayfa wajadtum ibadi adoomahaygi bal ka warrama hay waa lagu weydiinay hebelo magacaaga waa la waayay Allah subhanahu hadii lagu waayay hada waa khatar magacaaga waa la waayay waxa la adoomahay ka war kayfa wajadtum ibadi adoomahay saad maxaad ku aragteen markaas inaan taraknaahum wahum yusalluun wa ataynahum hum yusalluun ilaahu waxaanu ka nimid iyagiyo tukanay waxaan u tagnay iyagiyo tukanay ilaan casr bay u tageen amba subax bay ka soo baxeen haye halka diiwaanka ma laga waayay mise laga helay qodobka lixaad maalinta qiyaamaha markuu dhulku isla wada madoobaado nin walba tiriig waa laga baqtinay iftiin waa laga baqtinay amalkiisa iftiin u noqonay وهذه القرآن كان يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وهذه القرآن مركو ورمي مؤمنين النور كودي عبادتي صلاتي خيرك وناجي نورك بأوضع افتيمية وأشد ماي
markaasaa munaafiqiintii baa marka nuurkoodii iyagu nuurba malabade uu ka baktiyaya markaasay soconayaan kuwaa soo qabsada markaasaa la iltamis war xagga dambe u noqdo nuurkiinni xaggaa dambaad kaga timaadeen u noqdo ka doonta adduunyadii buu yaallaa kiinni baa la leeyahay dhulkan ma yaallo maantay saasi dhacaysana ilaahay adiga iftiin weyn buu kuu shidaya nuur buu kuu shidaya markaasaa nabigu wuxuu bashiri almashaa'iina fi dulam ila almasaajid binnuuri taam yowma alqiyaama waxaad ugu bushaaraysaa kuwa habeenkii masaajidda u soo socda habeenkii u soo socda nuur taama ugu bushaaree maalinta qiyaama qodobka toddobaad ee gebageba ah amba iska qadi amba diido waxaad helaysaa kunuusta iyo quruxda adduunyada ku jirta wuxuu dhigma subax marka tukatid oo muxuu nabigu yidhi yacni ragcatay fajri khayrun min addunya wamaa fiiha laba ragcadood oo tukata subaxa adduunyadii waxa ku dhex jiro dhan bay ka khayr badan tahay toddoba ma iga haysaan haddaba toddobadaabaa taalle aduu amba igshooranka ilaahay gal amba nuurkaa taamka adooro amba istayac wasala allahu wasalam calaa sayyidina